kulanti wanaagsan daawadayaal soo dhawaada madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa fariin adag ka diray magaalada Garowe ee caasimadda maamul goboleedka Puntland. Saciid Cabdullaahi Deni ayaa waayihii ugu dambeeyay ku soo celcelinaya sidii loo adkeyn lahaa midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed, isla markaana looga xaajoon lahaa wax walba oo la kala tuhmayo ama la isku haysto madaxda dawladda federaalka iyo maamul goboleedyadu ay isku haystaan, iyo sidoo kale sidii loo dhameyn lahaa khilaafaadka maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka iyo shacabka Soomaaliyeed ba u dhaxeeya. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa yidhi shirkii carte iyo isku keen bulsho Soomaaliyeed iyo dib u heshiisiin intii la aadi lahaa hadda ayay dhowdahay, hal la qabto oo ummadda Soomaaliyeed iyo dawladooda iyo wixii lagu heshiiyeyba hal la badbaadiyo. waa goob munaasabada mas'uuliyiin badan ay ka soo qayb galeen, shir maalmo ka socday magaalada Garowe oo isagana uu ka jeediyay khudbad dheer uu ka jeediyay. haddaba yaa diidan in dib u heshiisiin la qabto, in ummadda Soomaaliyeed dawladnimadooda loo adkeeyo, midnimadooda laga shaqeeyo, wadajirkooda laga shaqeeyo. khilaafka maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka yaa abuuraya. dawladda federaalku Saciid Cabdullaahi Deni bay ku eedeynaysaa, Saciid Cabdullaahi Denina dawladda federaalku ku eedeynaya, waliba cod dheer buu ku soo celcelinaya inuu diyaar u yahay inuu la garnaqsado madaxda dawladda federaalka, waxa la isku hayo in laga wada xaajoodo, haddii laga gar helana inuu gar qaadanayo ayuu mar walba meel walba uu tagaba ku leeyahay. haddaba dawladda federaalku maxay ku diidan tahay? haddii Saciid Cabdullaahi Deni uu diyaar u yahay, dawladda federaalku maxay ku diidan tahay? qodobkeena koowaad ayaan ku dul istaagi doonaa. qodobkeena labaad, dagaal aad iyo aad u culus ayaa mar kale maanta ka bilowday oo dib uga qarxay deegaanka Laandheer ee gobolka Galguduud. maleeshiyaadkii Xiraale ee waaye dhaweyd bil ka hor weerarka ku qaaday Laandheer ayaa saakana duulaan qaaday, iyaga iyo Mareexaan ayaana fooda isdaray oo waliba reer Dalaldiini qoyska beesha reer Dalaldiini ayaa ishelay. qandhaa la isku hayaa, hubka noocyadiisa kala duwan ayaa la isku adeegsanayaa. khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi iyo sidoo kaleeto sida ay halkaasi wax uga socdaan ayaan iyadana dul istaagaynaa. waxaan dhinaca kaleeto iyadana eegi doonaa wasiirka arrimaha diinta iyo awqaafta dawladda federaalka Soomaaliya shalay wuxuu magacaabay guddiga xajka sanadka 2025ka, sanadka hadda soo socdo guddiga xajka u xilsaarnaan doona Soomaalida ayuu magacaabay. fadeexad weyn baana sanadihii ugu dambeeyay, labadii sano ugu dambeeyayba dul hoganaysay. wasiirku magacaabista guddiga lama diidan oo isaga ikhtiyaar u leh waa wasiirkii, laakiin arrimaha la yaab kala waxay tahay xasan baa qof magacaabi, wiilkiisa ama gabadhiisu ku magacaabi, wasiir baa qof magacaabi, walaalkii ama cunugiisu ku magacaabi oo kuwa u magacaabi. waxyaabaha laga xishoodo adduunka dhan bay ka mid tahay arrimahaasi. Soomaaliya laakiin caadi bay ka noqotay labada sano iyo barkii xukuumadda Damu Jadiid. Abu Mansuur Rowow walaalkii oo isaga ka yar ayuu u magacaabay xogayaha guud ee guddiga xajka sanadka soo socdo. iyadana falcelin xoogan oo ka dhalatay ayaan iyadana dul istaagi doonaa. soo dhawaada muuqaalka like saara, aragtidiina noogu reeba qaybta commentiga. aynu ku bilownay Saciid Cabdullaahi Deni waa garnaqsaday, horeyna waa u garnaqsan jiray, xaqiiqaduna cabiray, runtuna ka hadlay, digniin buna bixiyay. wuxuu ka digay bulshada Soomaaliyeed civil war markii uu dhacay oo dagaalkii sokeeyay u dhacay dawladeeni laga taqalusay ay duntay. civil war baa dhacay, dagaal sokeeya dhacay, qoysba qoys buu cunay, kuleetiga ku dhagay taqaqam ninba awood u sheegtay. arba waxa way waxba aan la isku reeban oo la hilibka dadka in la karsado u badhina, wax kale dhinaa oo Soomaali isku reebatay ma jiro. waa la is urdoocay qoysba qoys. intii ka dambeysay markii 10 sano iyo dhowr iyo 10 sano dagaalku socday ilaa 2000 ka soo bilow, adu 10 sano iska dhe 2000 baa leeyay war isku baabaanay oo hoognayo baanay, war noo taliya adduunow noo taliya. adduunkii baa iskugu keenimaaday, shirar baa la qabtay, odayaal baa la xaabiyey, bulshadii baa la isku keenay, dib u heshiisiin baa la galay. dib u heshiisiintii markii la galay oo beelihii iyo Soomaalida dhexdeeda wax la isku afgartay oo nabad lagu wada baaqay, yaa la yidhaahayee maxaa xiga? dawladaan dhisano. dawlad baa la dhistay, maamul baa la dhistay, wax baa la soo qortay, sideen waxaan jirnay, dastuur baa la qoray, kumeelgaar baa laga sameeyey. Garowe waa ka mid ah meelihii juhdiga badan ku bixisay sidii bulshada Soomaaliyeed
wax iyaga ay leeyihiin oo dowladda loogu yeeli lahaa wixii nooca ku dhisnaayee lasoo waday kolba meel la keenayay maanta markaad saansaanteeda eegto waxay u eg tahay in lagu kala tago oo loo laabto 91 bay u eg tahay saciid marka digniin buu bixiyey siyaasiyiinta Soomaaliyeed aqoon-yahanka Soomaaliyeed madaxda Soomaaliya ugu sareyso Xasan Sheekh Maxamuud uu kow ka yahay digniin buu u diray fariintu u diray waxa weeye war waxaan inagu inta soo yeeleynay shirarkii iyo balaadii iyo hoogaan soo marnay dib yaan dalka loogu celinin maanta waa la qaban karaa halka ay marayso hal la qabta wuu Saciid Cabdullaahi Dani yaa diidan marka maxaa loo diidan yahay war ninkii maamul goboleedyadii oo waxay leeyihiin war dawladnimada ha la badbaadiyo war meel adag baan maraynaaye ka ilaaliya war halkaas aan ka joojino war halkaas aan saa ka yeelo war halkaas bay ka dumaysaa bay leeyihiin madaxdii dawladana afkooda waxba kama soo baxaya aan ahayn Ethiopia inagu soo duushay waaba la arkaayo carruurta yaryar baa ujeeda inay kugu soo duusheen duulaan ay ku taho dhulkaada iyo baddaada iyo barigaada rabaabay ku leedahay maxaad iskaga celin haddaadan dadkaadii midaynin haddaadan siyaasiyiintaadii midaynin haddaan madaxdii la tashiga kugu lahaa ee talada kugu lahaa aadan waxba u sheegin haddii mucaaradkaada aadan wax ka dhaadhicin haddaadan bulshadaada kasban haddaadan ummadaada isku dubaridanin maxaad iskaga celinaysaa ma filla Soomaaliya afarta agaasinaya taageena dadka caynaya wax celinayo Ethiopia la dagaalamaya waa maya Ethiopia lama qof lama dagaalami karo iyo 5 qof iyo 6 qof iyo hal beeltoona Ethiopia lama dagaalami karto Ethiopia waxa la dagaalami kara oo iska celin kara oo dhulka ka ilaashan kara bulsho midaysan oo hadaf midaysan leh taas baa Ethiopia iska celin karta inay soo duushay Ethiopia dhulka ay rabto badda ay rabto ay baahan tahay shacabkeedaan bad u rabaa abi inuu leeyahay wax qarsoon ma aha wax laga indhaha la iska tiri karana ma aha laakiin wax hebel waxa la yiri waxa ka sokeeya baa la yiri wax ka sokeeyay madaxda maamul goboleedyadu arkaan oo ah in dawladda federaalku aysan ka shaqeynaynin midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed aysan ka shaqeynaynin ay ka shaqeynayso meeshay leefleef ka heli lahayd wax ka leefleef lahayd lacag u doo ka qaadan lahayd xoogaa jaaga ka heli lahayd adu shaxadoon madaxda dawladda inay shaxadoon yihiin ayay madaxda maamul goboleedyadu arkaan meeshay istaagaanna way ku soo celcelinayaan Saciid Cabdullaahi Dani markayna ka dhibnaan ku soconne Dani wuxuu yiri war shirkii cartahay ugu celinina war bulshada Soomaaliyeed dib u heshiisiin iyo shir weyn oo la isku keenayaan qabano hadhowta ceeb bay nagu noqone hadda meel la qabtay leedahay meesha waxa weeye hal la qabto hal isla qabto oo bulshada hal isku keeno oo waxa lagu kala aragti duwan yahay hal laga wada hadlo oo wada hadal hal lagu dhameeyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud banaankaas uu ka istaagay wuxuu yiri cidna loo joojin ma fahamtay Sooma cidna loo joojin ma reer walba halkiisa hadda ganaado madaxweyne walbana halkiisa iska joogo cid loo joojin ma wax loo joojinayo oo lagala hadlayo oo lagala xaajoonayo oo wax laga weydiinayo ma jira buu yiri ninka la yiraahdo Xasan Sheekh Maxamuud aniga madaxweynaha ana tashanaya wadanka raban keeni wadanka raban eri adi kula tashan ma ka qayb galin ma waxba ka weydiin ma adi kuma qosayso hada waayahay adi ma marka tirood wax walba aad u qabsatay halkeed wax ka hirgelinaysa seed ku keenaysa Masar aan tusaale uga soo qaadanay Garowo Gaalkacyo iyo deegaan Puntland ilaa kama talisaadu ciidanku ma joogo awood kuma lihid dadkan adigu maada keensan maada soo dooran sidee uga dhaqan galaya amarkaadu koonfur galbeed iyo Kismaayo iyo meesha la yiraahdo Jubbaland iyo meesha la yiraahdo Hirshabelle iyo Galmudug sidee adiga amarkaadu uga dhaqan galaya hadaada madaxda maamul goboleedyada la tashan hadaadan siyaasiyiinta la tashan hadaadan dawladda goboleedyada aadan la hadlin hadaadan xaqooda siin hadaadan waxa weeye talawada ka dhigin hadaadan sidii dastuurku u ogolaa aad bal martay sidee amarkaadu uga shaqo galaya kama shaqo galaya amarkaadu kama dhaqan galayo deegaanada waxa weeye maamul goboleedyada amarkaadu kama dhaqan galayo Saciid warkiisu marka waa cad yahay
horeyna waa u caddeeyey marar badan buu caddeeyey ergada beesha caalamka u caddeeyey wuxuu wakiilada beesha caalamkan ka wada ayuu u caddeeyey ergeygii qaramada midoobey u caddeeyey tii kasii horreysay gabadhii la eriyay antolina buu u caddeeyey wuxuu u caddeeyey safaaradaha xerada xanaana ku jiro u caddeeyey cid walba u sheego uu yidhi war aan wada hadal iyo garnaqsi baan diyaar u ahay ha la ila garnaqsado ha la ila hadlo ha wax layga weydiiyo waxa aan tabayo iyo waxa dowladda federaalka aan isku hayno aan ka wada hadalno aan xalisano aan dhammayno haddii layga gar helo waan gar qaadan haddaan ka gar helo xasan sheekh maxamuudna haddee waxa weeye banaanka ha laga mariyo dalka yaan la duminin oo dana shaksiya loo duminin buu leeyahay xasanna wuxuu leeyahay maya cidaan la hadlin ma adag la tashan ma ani waxaan la hadlin male ruuxaan wax ka weydiinaya male halkaasuu ka baxay mama maxay tartay marka mama waxay tartay ma saasaa dhacday ha haye inaw yaa daris inoogu dhow etoobiya garabkaa la saaray sintaa la saaray na etoobiya maxaad iga caawin kartaa ana danahada ilaaliye waxaan ka caawin waxaad iga baahato haye ee dowladda federaalka iga celi yaysan saldhigyo masar ka siin halka kama siinaysa deegaankeyda waan ka riixayaa ee adigana waxawey ciidanka i tobabar oo hubi c sanad ciidani c dhaqaalo waxay u tari kartay u tar dowlad weyn baa tahay waa kada heshiisyada puntland iyo ay galeen somaliland markii laga reebo iyadu dee badihii iyo dhulka iibsanaysa ood moodidba dee xoolo xaraashahoo iyagu ari ay meel u daaqayay xaraashanayaan aada moodid marka laga soo tago puntland iyo koonfur galbeed iyo jubbaland iyo dhammaantood waxoodaa la siiyo waxoodaa loo tuuriyo bas xoogaa qarashkoodaa loo tuurayaa bas diyaar weye sidaasay markayay waxa weye ku ogolaad etoobiya ay ku difaacayaan jacayl ay jecel yihiin maaha dowladda soomaaliya iyo dalka soomaaliya ay burburinayaan ma aha kama suurowdo ragga waa rag odayaala waa rag ikhyaara waa rag bulsho badan xukuma waa rag dhibaatooyinka lasoo maray ogsoon waa rag waaye araga waa rag aan laaluush iyo aan ku shaqaynin waxaa la yidhahda leefleef aan ku shaqaynin weye ragga maamul goboleedyada sida puntland iyo saciid dan iyo ninka la yidhaahdo lafta gareenba waa rag soo alamiteeyey weye dhaqaalo ku filanna maanta way haystaano ways ka hor bay lahaayeen intayna siyaasadda soo gelinba ganacsaday ahaayeen oo ragga rag lacag lay ahaayeen sida ninkan soo orday naftu haysoo kale maaha oo meel kula dhaceen waxba deeqaynin meelu wixii u qaatana meelu ku shubayaan la garanaynin maaha si kastaba deni garnaqsigiisu halkaas buu yaallaa iyo maamul goboleedyada kaleetaba xasanna jid baa laga laayahay dhanka kaleeto dagaal baa ka dhacay saaka ka bilowday deegaanka landheer mareexaan iyo xeraale fooday mar kale isdareen bil ka hor waad ogsoonaydeen 100 qof ku dhawaad baa la iska dilay hal maalin gudeed oo maxaa sidee lagu dilay niman halkan oo habar gadir baasha ku hayo xer oo dir weeye la yidhi oo degmada xeraale deganoo deegaanka lagu ogaayo kitaabka dadka u akhrin jiray waagi hore sidaa ku imaaday oo habar gadirtan hadda waxa weeye iska habar gadirun sheegtay waa niman habar gadirun ayaa waagi horena weerar ku qaaday deegaanka landheer oo ceel halka riiga laga duleynayay iyo barkada laga qodayay bay weerar ku qaadeen waxa la yidhi halkan mareexaan ma degayo waa deegaanka dago way deganaayeen weeye maantana sidii si lamida weerar kale qaadeen waa la yari heshiisiyay waxba laga wada hadlay odayaal dhaqan waxba la dhigay haddana ma qaadna meel ay wax ka furteen weerar kale saa ka qaadeen baa leeyahay dagaal xoogan baa halka ka socdo dib baan idin kala soo socodsiin doonaa khasaaraha ka dhashay iyo halka la ismarinayaba muuqaalkeena dambaan kaga hadli doonaa nala soco warsada media la soco dhinacan kaleeto shalay wasiirka arrimaha diinta iyo awqaafta abu mansuur robow ninka robow ahaa wuxuu ahaa kooxdii gudoomiye hore ee kooxda shabaab haddana wasiirka arrimaha diinta robow shalay guddi buu magacaabay wuxuu magacaabay guddiga xajka 2025 sanadka soo socdo ayuu magacaabay ha magacaabo ma xume isaga hadda majaraha hayay oo guddiga isaga xaq u loo dastuurku siinaya inuu magacaabe oo la yaab ma lehe arrimaha xiisada leh waxa weeye xiisaha leh ku jira waxay tahay walaalkii buu ku-xigeen uga dhigay xogayaha guud ee guddiga ayuu wuxuu uga dhigay walaalkii waa ninka dhan ee liista iyo nidaamka iyo database-ka gobolada dhan ee dalka soomaalidu meel walba joogtaba ninka soomaaliya ka xajinaya dadka qoraya ee diiwaan gelinaya walaalkii buu ka dhigay gudoomiyuu ka dhigay diiwaan gelinta waxa weeye xogeeyo waa garanaysaane xogeeyaha kooxda dhan buu guddiga dhanba wuxuu ka dhigay walaalkii labadii sane horeba lacag u dhacay walaalkii oo waxa weeye ummadda soomaaliyeed oo dhan ba habaaraysay oo ka cabanaysay oo wakiil laga wada fadhiistay la yidhi bal horta walaalkaa ka reeb kama uusan reebina haddana xogeeyuu ka dhigay waagi horena guddoomiyuu ahaa
وأريما الله ياب كلا ويه حكومة حسن الشيخ محمود وضحهم بيهرت النوتش حذي وضحهم أي نوتش حذي هذا كهر با إن تجيكان تجلبه كل يوم سجالي طبانكي أنا ومركز تجيكات شوغان شاكي سنة من وضيال علماء ولبا علماء وين شاكي سنة نين علماء كم ذا أيا اللي بل ديجان ككورن محاد ديجان كفائدين بايدي أنت هذا وشوي عد إلى حلقسي محاد كفائدين وحن كفائدين بدهن وهذا وأنا ما علماء هذا جو وحن كفائدين قبيالته بهالشيء اللي هذا إلى يتعب مد إسكعادي mid iska caadi oo adiga kula dhalatay qof kula dhashay inuu yahay ayaan ka faa'iiday baa leeyahay cabdi li xilligiisi oo waa maxay baan shantan ina gooyaha kaaba waa nin oo abti u yahay inuu adeer u yahay inuu soo dhalay weeyaa leeyahay walaalkii uu ku wada qortay baa leeyahay daafiisa wasiirada oo xilka ka qaaday oo tumi oo garaaci marka waxa leeyahay gabadheed inta abti uu yahay qoyskiisana wada taajiriin buu ka dhigay guryaha dabaqyada u wada dhisay baa leeyahay oo lacagtii dawladdu siiyay hadda xukuumadda xasan sheekh maxamuud waxaan ka baranay oo bulshada Soomaaliyeed ay ka baratay oo xukuumadaha dambe ilaahu sidan ha ka dhigina aan ka yaabay inay wadada qaado bahan la yiraahdo qabyaalad madaxweynuhu uu soo istaagay isagoo taan wuxuu soo istaagay wuxuu yiri wiilkayda iyo wiilkan gabadha wahiya gabadhaydaba kama mamnuucinayso inay wasiirro noqdaan oo xilal helaan kama mamnuucinayso in aanu madaxweynaha bal waxa seegadu gabadhiisa waa la taliyaha wasaaradda arrimaha dibadda waa xogayaha guud ee arrimaha dibadda weey waa gabadhiisa wiilkiisana waa taliyaha madaxtooyada weey gaar ahaan waliba ciidamada ilaalada khaaska isaga waa ayuu taliyaha uga dhigay bal waxaas eeg adigu roobow waka isagana wuxuu magacawday walaalkii oo ka dhigay xogayaha guddiga xajka 2025 marka wasiir walba ninka walaalkii aha magacawdo waxa weeye agaasin walbana ninka ka hooseeya walaalkii ha ka dhigto xukuumadda xasan sheekh maxamuud nidaamkeedu waa nooca وانا النظام آد يا آد وحن أو دولة نمدا وحوي كل آد اللي توي ونظام آد اللي توي قبيلة وقرنه بسق ما سقهن هنان الله وقب يا هنان تون عن الله وي قابي هنان تون عن الله وحرجينا يا إلهي أرت حكومة المدة أنت إلهي هينو كانوا إلهي وحن كرجينا يا أمة الصوماليات مدنا هذا دناها الصوماليات وأديكتا وبالشارع الصومالي وأديكتا وحقوق ذا إلى لسا وحق ذا إلى لسا وحق الله حق صور بالشارع الصوماليات إلا إن يربى هذا النوران يصير قيساس يربى النوران يه بالشارع الصومالي ودن يكون ذا فايدة سكرته إلهي هاي إنه كانوا